السلام عليكم. نقد وناكسن سيتيهن وفي عنتيهن شانل كيني شاني بيوتي وانا شكريا ان ما انت شكك لاني هيا اي قبل ولا شيء نلا قبستي ان فكرة دينا يوزد واركتانا اي نيجا سويسو اد هوستو كسو قدونتان ان شاء الله. sheekadu hadaba sidan ahayd gabadhan waxay ku bilowday waxay tiri ani gabadh xaasoo la qabaanahay 7 sanadood baa la qabaa 3 ciyaalana waa leeyahay waxay tiri gabadhani waaga isbaran odagayga imika qaboqolka isbarteen odagaygu wuxuu ahaa maxaa la dhahaye businessman sida u taqaanaan amba commerçant ay yiraahdaan Afrasis Djibouti ay haysta dukaan le waxaad u taqaanaa dukaan bakhaar baa loo yaqaanaa dukaan ama bakhaar waxa loo yaqaano ayuu haystay uu ku shaqaysanayay oo dad shaqaale u shaqaynayay waxay tiraan ciyaal iskool baan ahaa maxay hadana kolkii u guursaday kadib waxaan damcay inaan iska daayo iskoolkayga aan sii watay oon caawiyo odagayga sidii uu u maareyn lahaa dukaanka sababtoo abay tiri dukaankiisu si fiican uma socon shaqo kalena muu haysan waxa kaliya uu haysto yaqaan dukaankaas meeheed maxaa la dhahaye si fiican kuma socon maadaama dadkii rag u shaqaynayna ay dhacay jireen ay lacagta laga xadi jiray waxaan damcay bay tiri sanadkii ugu horeysay kadib kolkii aan isguursanay inaan hadda iskoolaan iska joojiyo oo isaga caawiyo waxay tiri caawimaad waxay ka qaadatay 6 sanadood inaan la shaqaynay bay tiri odaygii uuba ii dhiibeyba dukaanka idil aan gestionkiisi waxa loo yaqaan Afrasis amba maareyn af Soomaali waxa la dhahaa maareynta dukaanka maareyntii buu ii dhiibay 6 sanadood kadib waxa dhacday bay tiri in maasha Allah dukaankii meeshii noo barakowdo oo 4 kale oo bakhaar oo furto waxay tiri hadaba dhibaatadii kolkaas ay bilaamatay bay tiri oo 4tii bakhaare kale uu furtay wuxuu bilaabay bay tiri inuu aniga haddiiba shakiyo uu ilaahdo waa badi xadaaba lacagti dukaanka iyo badiga xadaa tiri wuxuu bilaabay inuu haddeed gabadh kale uba keentay bay tiri oo meeshii dukaankii uu keentay oo ka yiri adiga hay halka khasnada halka lacagta gabadh kale u yeedhay waxay tiri wuxuu bilaabay haddeed inuu shaqooyinkii dukaanada dhan iga joojiyo oo anigii eriyaday oo bilaa shaqo iga dhigay waxay tiri wuxuu haddeed bilaabay inuu dad kale dhageysto oo maxay hadana dad kale uu ka soo warqaato ay dadka kale ka iraadan inay ku dishay rabtaa inay ku maxay sumaysay rabtaa oo haddeed aniga waswaas iyo khalkhalba iga bagalay wuxuu bilaabay bay tiri inuu haddeed oo maxay hadana yiraahdo Google Docs samaysaa rakalaad aragtaa waxaan hayaa proof baan hayaa proof of keban hayaa cadaystii baan hayaa kolkaan ku dhahana cadaystaada itus wixii aad igu haysana waxba ima tuso ma garanayo bay tiri waxaan sameeyay haddeed sidii hore iimaaday waxay tiri haddeed hadana wuxuu bilaabay inuu maamulkii gurigana uu bala wareego oo haddeed isagu keeno wixii cunto iyo raashin iyo wax kasta loo baahan yahay guriga isagaaba soo dhigo waxay tiri isaga kaligiiba adeega doona isaga soo iibiya kolkolna wuxuu heer gaadhaa inuu ilaa cuntadii karitaankii karisti oo maxay hadanay inuu haddeed inuu dherigii la karinayna uu rabo inuu haddeed gacanta ku qabto oo bala gala madakhi oo isagi iyo hableera adeerka oo ahaa iyo madakha gala kale yahay isagi baa karinay dherigiina haddeed waxay tiri wixii siduu uu yahay haddii aan raado furanku waa 500 oo faran waa 500 oo faran haddii aan raado sokortu waa 200 oo faran waa 200 oo faran wax kale dhaafsan ma isiiyo maxal dhahay wax alla wuxuu rabo sameeyaa isagu Google Docs uu sameeyaa wuxuu habeenkii sagta dhexe ayuu ku jiraa baraha bulshada sa WhatsApp anigoo arkaya bay tiri ayuu dumar kale la sheekaystaa waxay tiri goortuu rabo baxaa goortuu doono soo galaa wuxuu ciduu doono la sheekaystaa kolka waa maxay sidan idhaahdana waa noloshaydii buu ka yiraahdaa adidan waxaad ku haysaa amal la'aan weliga xaka maxadin weliga Google Docs ma sameyn wax sun meel yaaliyo waxna ma aqaanaba maxaa la dhahaye weliga xumaan uma raadin odagayga maxaa la dhahay waxay tiri
gabadh waxay raacisay waxaan sameeyay ma aqaano ani aabahay waa dhintay hooyaday baa nool hooyaday haddaan gurigeyga ku noqon lahaana ma karto maxay ahayd ma qaadi karto maxaa la dhahaa mas-uuliyadeeda amba charge waxa loo yaqaano waxaa la dhahaa lacagta adi wixii lagu noolaanay ma siin karto ogaada iyadina iskoolka way ka tagtay xeed si isaga uga shaqeyso iyaalkeygana ma ka tagi karo waxala waxaan meel dhigtay oon meel ku ogayna ma jirto oon waxay tiri waa dhibaato iyo hoogba ii sugnaaday maxay hadana salaad maba ka tukan karo walwal iyo walbahaarahaya waxayna soo weydiinaysaa gabadhaasi man xadi karaa bay tiri ninkaasa ila dhaqmaya man xadi karaa oo meel ma dhigan karaa san on maxay hadana hadhow aan uga tagi karo ambaba se aan maxay hadana wax uga qabsan karo walaa waa sheeko naxdin la weeyaan waa sheeko laga yaabay waa sheeko qiiro gelisay ninkan akhristay waxa weeyaan horta khaladka weyn ay sameysay waxay ahayd in iskool uga tagto rajadeeda uu dhigto halka isaga dartii haddii kolka hore iska sii tagtay dhibaatada ma lahaateen meese laakiin inay halkaa uga tagto ay intaasi sanadoodna u shaqaynaysay wallahi ana horta wadanka aan maxaa wadanada xeerar bay leeyihiin caadi ahaanta qof aan la shaqaynaysa haddaad keeni karaysid maxaa la dhahaaye preuve intaasoo sanadood waxbaa looga goyn karaa adiga horta haddii xeer ay ku isticmaasho maadaama 6 sanadood la shaqaynaysay xeer ahaan uma malayo inaan gacmo marni lagu dayn karo haddii ay xeerka la hortagto intii xeerba u tagin xeerka haddii isla gaara waxay ka dhigan tahay de khalaas furitaan iyo waxaasay rajoonaysaa iyadna ma rabto man xadi karaa uma malayo aniga kulama taliyaan inay xado gabadhaasi waxaa keli haatan odhan lahaas waxaa weeyaan walaashadii shaqo kale iska raadso shaqo kaloo keesiyaara ma shaqadii isaga u haysay inan kulleyba experience waad ka qaadanaysaa waxaad ka yeelanaysaa maxaa la dhahaa waayo arag af Soomaali maxaa la dhahaa adi cilmi oo kale weeyaan kolka meel ka shaqeynaysa experience baad ka yeelanaysaa kaas ku tiri doonto shaqada dambe tagi doontid kolka shaqo kale iska raadso iska shaqeyso maxay diin ahaan waxaan u maleyn inaan kala maqlay ninka haduu gacan adag yahay waad wixiisa waad ka qaadan kartaa adii tuugnimo ma kugu ah waan karnaa iska xad maalin waxaan oran lahaana inta la kala on siin karaa gabadhaas oo ahayn shaqo kala raadso ambaba in iskoolkaaga iskaga noqo oo tacliintaada kolka buuxsatid shaqo kala raadso oo independence ka noqo qofdee adi dhinaceyga isku filan noqo idinka maxaad ka leedihiin fikrada haddaad haysaan nagu soo tabiya maxaa la dhahdaa ani fikradeeda labadeeda waa saas amba iskoolkayga dhamaysato hadhowna shaqo ay raadsato ambaba si iskool baydayna ku noqono shaqo kaleba iska raadsato shaqadii isaga u haysay ay tuulamida ay raadsato ay lacagtiisa u urursato ambaba se maxaa la dhahaayay haddii ay intaas u hagaagi weydo ay dernier cours adi wixii ugu dambeyn ay noqoto inay kolkaas ay maxaa la dhahaayay ay ka qaadan karto isagunan ogeyn lacago ay meel la dhigan karto say u saaf garaysato nolosheeda iyo nolosha ciyaalkeega idinka maxaad ka odhan lahaydeen walaalayaal gabadhaas sheekada soo tabisay maxaad fikrad ka dhiiban lahaydeen commentiga ugu qoraa ha ilaawina subscribe like hadduu ni cajabina kalka waa kaasay isku soo noqo dambe wanaagsan salaamu calaykum